بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا جالك مالمها waxaan idin soo gudbinaynaa qiso mudan in lagu cibro qaato. qisadan ayaa waxay dhaxmartay haweeney maskiina oo ka ganacsatay iibinta subaga iyo nin hantiil ah oo aad u kibiir badnaa. haweeneyda maskiinta ayaa Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu siiyay 4 caruur ah, waxayna ka murugeysteen noloshooda iyo waxbarashadooda. 4 cunug aabahood ayaa wuxuu dhintay 4 sano ka hor, waxayna hooyadani go'aansatay inay caruurteeda dhaxda u xirato isla markaana noloshooda xil iska saarto. waxaa bilowday sanadguusiyadkii cusbaa. caruurtiina waxay u baahan yihiin uniformkii iskuulka iyo qarashkii ay ku iibsan lahaayeen waxyaabaha iskuulka looga baahan yahay. maamadan ma aysan haysan wax dhaqaale ah, waxayna ifka ka qabtay xoogaa subag ah oo ugu jiro weel yar oo ay ku iibiso suuqa isla markaana ay ka soo hesho xoogaa faa'iido ah. ayada oo meel fadhiso iska fikirayso ayaa waxa u yimid wiilashii wiilkii ugu yaraa oo ay ka muuqato farxad. wuxuuna ku yiri hooyadii, hooyo maanta waxaan kuu duceeyaa anigoo salaad dukanayo oo sujuudsan. waxaan rajaynayaa inuu Allah subxaanahu wa ta'ala barito ku sahli doono risqi fara badan. hooyadii aad ay u faraxday, waxayna xabad ka saartay wiilkeedii yaraa. waxayna ku tiri, sida aad iigu duceysay haddii aan barito wax u soo helo, waxaan kuu ballan qaadayaa inaan kuu iibiyo dhar aad u qurux badan iyo alaabtii aad iskuulka ku aadi lahayd. markii uu waaga baray, hooyadii waxay soo qaatay subagii yaraa oo weelka ugu jiray, waxayna soo aaday suuqa si ay u soo hesho xoogaa faa'iido ah. ayadoo dhex socoto suuqa ayaa waxa u yeeri nin uu ka muuqdo kibir iyo isla weynin. wuxuuna weydiiyey waxa ay wado. waxay ku tiri si ay ku jirto tawaaduc, waxaan wadaa subag. wuxuu yidhi, bal itusi aan arkay sida uu u yeelo subaga aad wado. hooyadii maskiinta ahayd markii ay subaga madaxa ka soo dejinaysay ayaa waxaa ninkii dharkiisa ku daatay xoogaa subag ah. ninkii aad ayuu carooday, markaasuu ku yidhi, maxaad dharkayga u wasaqaysay? meeshan kama dhaqaaqaysid maanta adiga oon isiinin maradan lacagteeda. haweeneydii maskiinta ahayd aad ayay u murugootay, waxayna isku dayday inay u cuurdaarato. waxayna u sheegtay inaysan awoodin oo ay maskiin tahay, wax lacagana aysan qabin. balse ninkii kibirka badnaa waa uu ka diiday. kadib maskiintii waxay weydiisay qiimaha maridiisa. wuxuu ku yidhi, waa 1,000 diinaar. hooyadii way iska oysay, waxayna ku tiri, ii naxariiso oo ha ay fadeexaynin, waxaan ahay hooyo aan waxba haysanin. xaggeen ka keenin lacagta aad sheeganayso? aniga ayaaba u baahan intaa in ka badan oo caruurteeda ugu iibiyo waxyaabaha ay ugu baahan yihiin iskuulka. ninkii isaga oo haweeneydii ku qaylinaya ayaa waxaa soo dhinac istaagay wiil dhalinyaro ah. markaasuu hooyadii weydiiyey waxa ay la oynayso. markaasi waxay u sheegtay qisadii dhex martay iyada iyo ninkan. wiilkii ayaa ninkii la dooday, waxaana meeshii isugu soo baxay dad aad u fara badan. dadkii markii ogaadeen ninkan arrintiisa aad ay u qayliyeen, waxayna ku tilmaameen inuu yahay nin aan wanaagsanayn. kadib wiilkii ayaa wuxuu ku yidhi ninkii, lacagta aad haweeneyda ka rabto waa meeqo? markaasuu wuxuu ku yidhi, waa 1,000 diinaar. kadib wiilkii wuxuu soo saaray lacagtii, wuxuuna ku yidhi, qaado, waatan lacagtaadii. ninkii ayaa isku dayay inuu lacagta qaato, meeshana uu ka dhaqaaqo. wiilkii ayaa ku yidhi, xaggeed u socotaa? soo lacagtaadii ma helin? wuxuu ku yidhi, haa. markaasaa wiilkii ku yidhi, maradii lacagteeda waad qaadatay ee na sii oo noo siib, annaga ayaa iska leh. markaasuu ninkii wuxuu yidhi, haddii aan siibi waayo maxaa dhacayo? wiilkii wuxuu ku yidhi, lacag ayaadna siinaysaa. markaasuu ku yidhi, waa meeqo? waxaa lagu yidhi, waa 2,000 oo diinaar. markaasuu wuxuu yidhi ninkii, maanigu qaban ayaan baxayaa, taasi waa dulmi. wiilkii ayaa ku yidhi, haweeneyda maskiinta ah waxaad ku samaysay soo ma ahayn dulmi. ninkii qaladkiisa ayuu fahmay, wuxuuna ka cudur daatay wixii uu sameeyey, wuxuuna soo celiyey lacagtii iyo 1,000 kale oo dheeraad ah. wiilkii wuxuu dadka hortooda ku siiyey hooyadii 2,000 oo diinaar, wuxuuna ku yidhi, waa hadiyo ee qaado. hooyadii arrintan way rumaysan weysay, waxayna ku noqotay layaab, waxayna ku dhacday dhulka. wiilkii markii uu arkay in hooyadii ay wareertay ayuu gaarigiisii ku soo qaaday, wuxuuna geeyey gurigeeda. markii ay tagtay gurigeeda ayay waxay u yeertay wiilkeedii yaraa, waxayna ku tiri, alla ducadaadii waa u aqbalay maanta, wuxuuna naga arsuqay meel aan ka filanaynin. maalinkii xigtay hooyadii waxay soo aaday suuqa, waxayna caruurteeda u soo iibisay waxyaabihii ay u baahnaayeen oo dhan. sidaa ayaana alla uga qaaday murugadii haysatay. qisadani waxaynu ka faa'iideynaa inaad mar waliba alla u bandhigato umuurahaaga, isla markaana aad tala saarato. maxaa yeelay wuxuu alla subxaanahu wa ta'ala leeyahay, ibarya aniga waan idiin ajiibayaaye. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gamareelkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.